salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa mar kale iyo barnaamijkii kasbo oo aan alaaba diradda ku saarno buugga la yidhaahdo saaxiibo kasbo, kaasi oo markaasi ka hadla fanka la dhaqanka dadka. buuggan ayaa waxaa qoray Dale Carnegie waxaana turjumay qareen Cabdiraxmaan Xuseen oo loo yaqaano Abu Xamza. kusoo dhawaada qaybtii soddonaad ee barnaamijkeena kasbo, waxaana ka sii ambaqaadaynaa halkan. nin la oran jiray Colonel Edward House wuxuu ku lahaa gacan weyn arrimaha dawladda gudaha iyo dibaddaba. markuu Mareykanka madaxweyne ka ahaa Woodrow Wilson, sababtoo ah madaxweynaha ayaa tixgelin jiray hadalka Colonel House in ka badan inta uu tixgeliyo xubnaha dawladdiisa. muxuu samayn jiray Colonel House oo ku samayn jiray madaxweynaha? nasiib wanaag, dariiqadaasi wuxuu u sheegay House saaxiibkii Arthur H. isaguna wuxuu ku faafiyey wargeyska Saturday Evening Post. wuxuu yidhi, House, waxaan fiiriyey xaalkii madaxweynaha, waxaana ogaaday in sida ugu wacan ee fikradda loogu dhoweyn karo maskaxdiisa tahay in fikradaha loo tilmaamo si guud marac, laakiin uu garan karo ama loo hoosgeliyo si ay ugu muuqato inay fikraddaasi tahay midiisa. xaqiiqada waxaan ku ogaaday si lama filaan ah markii ugu hortay mar aan ku soo booqday madaxweynaha gurigiisa, waxaana kula taliyey si caddaan ah inuu ku isticmaalo siyaasad aan tilmaamay, laakiin raali kama noqon. kadib anigoo la cashaynaya ayaan la yaabay inuu soo celiyey tii uu horay iiga diiday, isagoo u ekaysiinaya inuu isaga soo saaray. Mr. House ma dhihin anigaa fikradda lahaa, ma aha mid cusub oo aad adigu keentay. Mr. House intaa waa uu ka caqli weynaa, maxaa yeelay isagu dan uma lahayn qofka loo nisbeeyo sharafka fikradda, waxaase u daran in fikraddaasi fusho. weliba waxaa intaa u dheeraa inuu u nisbeeyey Wilson si caddaan ah fikradda ka soo burqatay maskaxdiisa. xusuusnow in dadka aad la kulmaysaa yihiin dabeecad la mid ah midda Wilson oo kale. marka ku isticmaal dariiqa Mr. House. nin baa igula taliyey dariiqadda nafteeda, wuxuuna iga helay wuxuu rabay. waxaan doonayay inaan u baxo safar dalxiis iyo ugaarsi isugu jira oo aan ku safro webiga. waxaan u qoray xafiiska safarka dalxiiska inay ii soo saaraan xog waranka aan u baahnaa. waxay soo gaaray dhambaalo badan iyo wareegtooyin ka waramaya xeryaha lagu nasto iyo dadka ka shaqeeya magaalada New Brunswick, ilaa aan ka jahawareeray oo aan garan waayay midii aan dooran lahaa. markaasaan waxaan helay mid ka mid ah dadka xeryaha dalxiiska oo falay wax aanay kuwii kale falin. wuxuu ii soo diray liis ay ku taxan yihiin magacyo iyo nambaro taleefoonadooda oo reer New York ah oo ku degay xeradiisa, oo ugu marakacaya kartida iyo khibradda uu leeyahay. wuxuuna iga codsaday inaan weydiiyo dadkaasi si aan u hubsado siday ugu shaqeeyaan dadka ku soo dega. waxaan ka helay liiskii nin aan aqaan, markaasaan weydiiyey ninkii, wuxuuna aad ugu ammaanay xeradaasi. haddiiba waxaan u diray taar oo aan ugu sheegayo markaan imaanayo ama ku soo aadanahay. kuwii kale waxay doonayeen inay iga iibiyaan shaqadooda si qasab ah, laakiin ninkaasi wuxuu igu xambaaray inaan anigu iibsado, wuuna ku guulaystay. haddii aad doonto inaad dadka kale u soo jiidato fikraddaada, raac murtida El7. dhaaf qofka kale, ha dareemo in fikraddu tiisa tahay. mar laga joogo 25 qarni, wuxuu yidhi Lloyd Tees, abwaankii reer China, xigmad xeel dheer oo dhegaystayaasha barnaamijkani ku camal fali karaan casrigan, kana heli karaan natiijooyin la yaab leh. waana sidan: ninka caaqilka ah waa ka hadduu doono inuu dadka ka hormaro dejiya naftiisa meesha ugu hooseysa. haddii uu doono inuu hormaro
naftiisa geeya gadaashooda. Miyaadan arag badaha iyo webiyada siday uga helaan biyaha musaska iyo laagaha ka sareeya? haddana waxaynu gudagelaynaa qaybta 8aad oo ciwaankeedu yahay erayo la yimid wax la yaab leh. waxaa la arkaa in qofka kale gefsan yahay, laakiin aanan garwaaqsan gefkiisa marnaba. maha canaan. doqon kasta waa awoodi karaa inuu wax canaanto, laakiin isku day inaad afgarato lana kaasho samirka wanaagsan. waxaad heli doontaa inay jirto sabab u geysay inuu sidaa u fikiro ama uu sidaasi ku kaco. haddii aad sababta garato, waxaad heli doontaa miftaaxa ama furaha shakhsiyadda qofka. isku day si daacad ah inaad u dejiso naftaada meesha qofka kale. ku dheh naftaada, sideen ku dareemi lahaa, sideen samayn lahaa haddii aan meeshiisa joogi lahaa. waxaad arki doontaa markaasi inaad naftaada u daysatay waqti badan, kana badbaadisay dhibaatooyin adag. weliba waxaad kasbanaysaa khibrad xagga la dhaqanka dadka ah. wuxuu ku sheegay Kenneth God kitaabkiisii sidee dadka ugu bedeli lahayd dahab. sug wax yar, isku fiiri ahmiyadaada aad siinayso arrimaha dadka kale. ogow markaasi in qof kasta oo adduunkani ku nool dareemayo sidaad adigu dareemayso oo kale. haddii aad sidaa garato, waxaad gaartay heer sare xagga fanka la dhaqanka dadka, sababtoo ah ku liibaanta la dhaqanka dadka wuxuu cuskan yahay fahmidda fikradda qofka kale oo ku dheehan naxariis iyo cadfi. anigu waxaan kasbaday khibradayda dabeecad dadka inteeda badan markaan ku tamashlaynayay anigoo lugeynaya ama wax fuushan beerta ku dhow gurigayga. waxaan aad u jeclaa geedka baloodka ah, aad baana uga xumaan jiray markaan arko geedkaasi oo la gubaayo. dabkaasi kama dhalan dabada sigaarka ay tuuraan sigaaryo cabku, laakiin wuxuu ka dhashaa caruurta tegaysa beertaasi iyagoo doonaya inay ku daydaan awoowayaashooda oo ay ku karsadaan cuntada geedka basiga hoostiisa. waxaa jiray ogeysiis lagu qoray loox weyn oo uga digaya qofka in dabka lagu shido beertaasi. qofkii ku shidaana lagu ciqaabi doono xabsi ama ganaax. laakiin waxaa laga taagay looxaasi meel aan indhaha dadku u badnayn oo qallooca. waxaana loo xil saaray nin booliis ah oo faras fuushan inuu kormeero beerta, laakiin kuma dadaali jirin waajibkiisa xagga caruurtaasi. dabkii waa sii badanayay marba marka ka dambaysa. mar baan ku soo orday booliiskii, waxaan ku idhi, dab baa ku fidaya beertii dhan kasta si dhaqso ah. waxaan kaa codsanayaa inaad soo wacdo dabdamiyeyaasha. laakiin wuxuu iigu jawaabay si qabow, taasi shaqadaydu ma aha mar haddaanu dabka ka kicin meelaha la ii xil saaray. waxaa igu dhacay qalbi jab. waxaan goostay markaasi kadib inaan ka shaqeeyo sidii guddi loo wakiishay inuu ilaaliyo danaha dadweynaha. run ahaan markii hore ma dirsin sidii caruurta u arkayaan. haddii aan arko dab meel ka kacay, waxaan woordi jiray meeshii, markaasaan canaanan jiray caruurta. waxaan ugu hanjabi jiray inaan booliiska u sheegi doono haddii ay dabka dimin waayaan. waxaan iskridi jiray keli ah culayska garbaha iga saaran anigoon tixgelin aragtida caruurta. maxaase ka dhashay? caruurtaasi waxay yeeli jireen waxaan faray, iyagoo wejigooda ay ka muuqato canaad iyo carigsi. waxaa la arkaa inay dabkii shideen markaan ka tegay, iyagoo rajaynaya in beerta oo dhammi gubato. markay sanooyin ka soo wareegatay, waxaan kasbaday khibrad dabeecadda aadamiga ah, aqoonta dadka iyo doonis arrinka dhinaca qofka kale ka joogo. marka waxaan iska dhaafay amar bixintii. markii dambe waxaan u digi jiray caruurtii anigoo fuushan faraskayga. markaasaan oran jiray, malaha waxaad ku raaxaysanaysaan waqti wanaagsan saaxiibayaal. maxaad qado ka dhiganaysaan maanta? markaan idinla ekaa aad baan u jeclaa sidiinoo kale inaan dabka ku shido geedka jiridiisa si aan cuntada ugu karsado. waan u xiiso qabaa sidaan waagaa samayn jiray. laakiin ma ogtihiin in dabku
halis gelinayo beerta oo dhami inay gubato oo ay baaba'do. Waan ogahay inaydan shar damacsanayn, laakiin waxaa jira caruur kale oo halkan dab ku shidaya. Markay guryahoodii ku noqonayaana aan daminaynin. Markaasuu dabkii ku fidayaa laamihii qalalnaa. Markaasay gubanayaan geedihii dhaadheeraa. Waxaana jira inay nidaamka khilaafsan tahay dabka sidaa u shidan. Laakiin ma doonayo inaan idinku noqdo booliis oo aan soo dhexgalo ciyaartiina. Waxaan jeclahay inaan arko idinkoo ku raaxaysanaya waqtigiina. Haddaba qaybtan 3aad ee barnaamijkiini Kasbo halkan haynoo joogo waa Maxamed Cali Juxaah oo idinkaga tegaya. Salaamullaahi calaykum.